kuwan waa tuugta ugu doqosan adduunka ee kaamiradu qabatay ma aaminisid waxay sameynayaan allah assalaamu calaykum asxaabi ku soo dhawaada muuqaalkeena YouTube maanta iyo muuqaal cusub aan u gudagalnahay saaxiibayaal xarfaankan iska qarinay kaamirada isagoo iska xijinay sheegan dabcan wuu ogaa in la daawanayo laakiin si lama filaan ayaa loo arkay wajigiisa dhamaaba allah malaha wuxuu hubinay in wili la daawanayo tuugtan ayaa qaabkan ku soo gashay goobtan malaha wax isdheen hadaad qaabka ku soo gashaan leedin arki maayo mararka qaar qorshe yar oo aad hore u sidegsato ayaa ku badbaadin kara waqti badan iyo dadaal badan oo aad bixin lahayd tuugan uu soo galay dabcan meeshan muraayad ayaa taalay muraayadii ayuu iska dhaxarkay markaasuu is yiri balo meesha lagu jira fagatax agu wax ka dayay wuxuu isiri ninkuu mashquulsan yahay alaabta la carar balse meeshii ayaa wala si loo gareeyba booliisku shaqada loo fudeeyay nima yaabin ayaa yiri waan yaabay xariifkan wuxuu madaxa soo gashayba bac si aan loo aqoonsan wajigiisa ajaa'ib sheekho tuugtan si heesre loo jibiyay ilinka tugaanka elektrooniga ahi laakiin kaliya sheekadu wax ka xumaatay si bixitaankii uun wala waxba ku dhacay waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu helo lacag dabcan ATM hadaba ninkan wuxuu go'aansadayba inuu xado mishiinkaba ajaa'ib sheekho inaad wax ku qorisid dharkaaga hoostiisa iyadoo aan laga shakin waa mid heer sare ah allah dadka qaar ay isku dayeen inay wax kasta xadaan sida ninkan oo inta fanaanada hoost gashtay si dhaqaajiyaba ajaa'ib sheekho dabcan waxay rabtay inay wax dhacdo laakiin kaamirada ayaa qabatay wajigeeda malaha wax iskaga bixisay way ku kululaatay uun ajaa'ib sheekho markuu arkay alaabta ilinka ayuu farxad darteed booliisku ugu abaalmariyay taas isagoo wajigiisa ay qabatay kaamirada allah macquul ma aha inaad wax ka xidid xarunta booliiska hadaba xariifkan wuu isku day laakiin maanta maalintiisa maahan oo gacanta lagu dhigay ninkan wuxuu u maleeyay in habka ugu wanaagsan ee loo dhaco dukaamada dahableeda ay tahay in dhagax lagu garaaco muraayadaha uu ku jiro dahabka malaha kumuusan xisaabtamin awoodda muraayadaha isagoo gacan maran ayuu goobta ka baxayba saddexda nin waxay qabteen shaqo inabaan caadi ahayn labada nin ayaa mashquulay ninkii halka saaxiibkoodna soo xaday laba taleefan dabcan waxay noqon lahayd xatooyo xirfadeysan balse kaamirada ayaa dubtay dhaqdhaqaaq kasto ay sameeyeen tuugan wax kasta way u suurto gashay oo wuxuuba ku dhex cararay goobtan saqdi dhexabeenkii A few moments later wax kasta caadi ay ahaayeen ilaa uu ogaaday inuu ku dhex xanibaaday dukaankii xilli uu doonay inuu ka baxsado goobta odaygan wax uba ma wato balse gacantiisa maran ee jeeb ku jirta ayuu wuxuu ka dhigay inuu hub ku haysto oo isagoo bila'aan ayuu dhac geystay balse kaamirada ayaa qabatay wajigiisa oo dirbo wala soo xiraba allah tuugnimada lagu sheegayo ayaaba xirfad ah dabcan la yaab ma leh haddii xarfaanta maalinta xigta la soo qabto oo waxba duubtayba kaamirada allah mararka qaar qofka ka xad alaabahaaga wuxuu noqon karaa kan kugu xiga ee darska kula ah ajaa'ib sheekho xarfaankan sidoo uu cararayay ayuu wada khaldan maray laakiin kuma khasaarine xogaa jimicsina uu helay ugu dambeyntiina gacanta lagu dhigayba ajaa'ib sheekho maalin kale isku day xaditaan kale ee qalabka ATM-ka laakiin xarfaankan wuxuu ilaaway inuu xariga ku xiro gaariga xariifka ma badaneynayo inay tahay maalin cadiyin kale oo wuxuu rabaaba inuu dhaco gaarigan gudaha ayuu sii galay laakiin markii uu shaqeyn weeday gaariga intuu ku istaagay ayuu ka tagayba xarfaankan tuugahay kuma xisaabtamin in meeshan ay ilaaliyaan laba ay oo loo tababaray ilaalinta hantidan allah baay oo kartoon cabitaana ayaba hoosta gashatayba haweeneydan waa shaqo tag oo hoos ayaaba lagu qaatay cabitaankii si aan laga dareemin ajaa'ib sheekho xariifkan wuxuu iska hayn waayay dooradan ma rabo inuu dhaqaaqo oo wuxuu rabaaba uu yaraa inuu dhirmiyo ajaa'ib sheekho xarfaankan wuxuu saqda dhexaabeenkii ku soo guuriyay goobtan isagoona jabinaya dhalada albaabka si uu u galo gudaha laakiin markii uu galay albaabkii ayaa furmayba allah markii aad la cararaysa cabitaan ugu yaraan waa inaad si fiican u xirataa suunka surwaalka ama tan ayaa kugu dhici kartaa xarfaankan wuxuu damacay inuu la cararo dahabkan weliba si qorshaysan dabcan qoorta ugu jira hadaba orodayay maxaa ka horeeyay albaabku uu xiran yahayba malaha ninkan hore loo soo gaaday oo waba ka dharagsan yahayba qorshahan allah xitaa sawirada darbiyada ku dhagsan kama badbaadiyaan tuugtu hadaba tuugan ayaa u maleynayay inuu qarin karo sawirkan oo isagoo caadi loo jeedo ayuu halkaas kala baxayba ajaa'ib sheekho tuugta bishkuleetiga wadata xitaa maalinta cad ayay wax dhacayaan hadaba xariifkan waxaa qabatay kaamira ku xirnay bishkuleetigan isagoona ku guuldareystay qorshihiisii tuugan hubeysan ayaa soo galay goobtan intuu silaha ku qoob iskoolada ayaba ka dhacdayba soo qabsu damacay uu is qaadi waayaba wuxuuna u cararay qaabka kung fuga allah
kadib markii la soo xiray halkan ayaa la keenay si su'aal loogu weydiiyo kaligiis ayaa meesha looga tegay kahor inta uusan samayn isku daygan baxsan ee saqafka labaad laakiin booliisku markasta magacaaga ayay hayaan xariifkan ayaa damcay inuu galo albaabkan isagoo aan wadan furo wuxuuna meesha joogay 3 saacadood isagoona weliba garaacay albaabka si uu helo meel uu ka galo ilaa markii dambe uu ka ogaaday inuu albaabku leeyahay batoon la riixo ninkan intuu goobtan bushkuleetiga lagu gado soo galay ayuuba damcay in bushkuleetigan waxdo si caadi oo loo jeedo oo weliba degdegsimo ku jirto Allah sida caadiga ay tuugtu waxay ka boodaan albaabka iyagoona u dhaadhaca gudaha guriga laakiin tuugan albaabka ayuu la cararayba Allah ninkan ayaa soo xaday TV-gan isagoo la soo caray dhankaas iyo gaarigiisii laakiin maba la ekaba ku camami maanta oo dhan Allah tuugan wuxuu isku dayay inuu xado fiilooyinka korontada weliba biyaanada afraad halkaas ay ku xayirnaaday isagoo dul saaran qaboojiyaasha 2 maalmood u saarna halkaas dadkii goobta ay u fidiyay caawinaad Allah tuugan ay u suurta gashay inuu gacanta ku soo dhigo cash register tray oo lacagaha lagu ururiyo balse waxa caqabad noqotay qaabka looga saari lahaa meesha markii ninkan isku dayay inuu xado joodarigan iyagu si farxun dhulka ugu dhacayba ajaayib shaqo markii booliisku qabtay gaarigan sababtay u ordeen waxay noqotay mid muuqata farabadana wuxuu makunkii farax quulaa Allah balkaban haddii aad goobtan aad soo gashid aadna qaadatid waxyaalo iska raqiis ah iyadoona meesha ay yaalaan boqolaal moodelo oo kala duwan oo iPhone ah Allah marka aad goobta in badan loo soo dhaco inaad dabin u dhigto tuuga waa habka ugu wanaagsan ee loo qabto tuugta hadba xariifkan ayaa way meel uu ka baxo iska garaac albaabka leey xariifkan wax kasta ayuu sameeyay sidoo u heli lahaa cabitaankan Pepsi-ga marka laga rabay inuu iibsado markaas ayuu bilaabay inuu albaabka ku garaaco garabka Allah ninkan wuxuu cunugiisa u adeegsaday inuu iskaga qaray kaamirada halka isagana uu bilaabay inuu xado laptopka isagoo gelinaya suraalka hoostiisa ajaayib shiiqow dabcan waxaan dhigi karnaa dhirta guriga banaankiisa ka maqan xal ayaa loo helay maqnaashiyahooda Allah xarfaantan tugtahi ayaa qaabkan u soo galay baarkan iyagoo dhulka xamaaranaya malaha wax si dheheen leesar ayaa ku xiran laakiin leesar kuma xirnayne waxa ku xirnaa kaamiradan duubaysa dhaqdhaqaaqooda dabcan ninkan dhacayu sameeyay oo lacag ayuu soo xaday una xarakeenayaaba cajiibga dheh laakiin lacagta ayaaba ka daadatayba wadada dhexdeeda walla uu ka sabri laayahay xarfaantan waxay isku soo raaceen inay xadaan kursigan laba qaadka micnaha 2 qof iyo ka badan ayaa ku fariisan karta oo waxa qabatay kaamirada iyagoo la sii dalaq leh kadib markii uu tuugan u soo dhacay goobtan lagu gado kombiyuutarada ayuu wuxuu ogaaday in kulli ay ku xiran yihiin anti theft cables oo ah xargo lagu xiro kombiyuutarada oo laga ilaaliyo inay xadaan tuugtu waxa kaliya uu ninka rabay inuu sameeyo ayay ahayd inuu celiyo frantigan oo jooga $17,000 balse halkii uu ku noqon lahaa gudaha ayuuba sii tagayba nasiib wanaag kaamirada ayaa duubtayba labadan gabdhood ayaa sii calmaday kabi ay xadi lahaayeen hor inta aan la qaban ayna ka baxsadaan goobta